السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا ولاله دعوانا مeel walba waa joogtaan iyo silbo muuqaalkaygu marka idin soo gaariyay muuqaalkan waxaynu ku eegi doonaa laba dhacdo oo kala duwan isla markaana inoo sawiri karaya xaaladda rasmiga ah oo ay ku sugan yihiin dadka Soomaaliyeed iyo waliba dalka Soomaaliya waxaynu marka hore aynu baldul istaagi doonaa oo aynu falanqeyn doonaa khilaafka u dhaxeeya Muqdisho iyo Garowe hadallada warbaahinta la isku soo marinayo iyo loolanka ciidanka ee dawladda dhexe iyo Puntland markaasi ka dhex taagan waxaynu si toos u dul istaagi doonaa su'aasha ay cid walba maanta isweydiinayso oo ah maxay tahay danta laga leeyahay mushaarka ciidanka ee warbaahinta laga naadinayo marka laga hadlayo madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba ra'iisul wasaarihiisa Xamse Cabdi Barre waa maxay qorshaha mushaar ee xilligan soo galay Garowe iyo Puntland ayaynu baldul istaagi doonaa kale waxaynu fiirin doonaa ama qodobka labaad waxaynu ku fiirin doonaa siyaasadii Cabdiraxmaan Ciro ee ku saleysnayd jacaylka Yuhuudda iyo waliba maamulka Benjamin Netanyahu oo xilligan culays weyn la kulmaysa markaynu ka hadlayno siyaasiyiinta waaweyn iyo kuwa xilalka soo qabtay ee gudaha maamulka Hargeysa isla markaasna Cabdiraxmaan Ciro waxa la hor dhigay ayaa la oran karaa su'aasha ugu cusleyd ee abid u markaasi uu wajaho u bareer ayaa la yiri inaad diiday ama aad banaanka u turtay ku dhaqanka diinta islaamka waa eedayntii ugu weyneyd waana su'aashii ugu weyneyd ee siyaasi Soomaaliyeed markaasi la hor dhigo bal arrintan waynu fiirin doonaa soo dhawaada saaxiibayaal meel walba joogtaan iyo silbo muuqaalkaygu marka idin soo gaariyaba taariikhdu waa 3 July 2026 waana markii ugu horeysay oo maanta hawada ku kulmayno fadlan dib muuqaalka idin soo gaar muuqaalka like saara channelka isku xira si aad ula socotaan analysisyada iyo waliba xog aruurinaha kala duwan oo halkan ku soo gudbinayno maalin walba iyo waliba goor walba aad ayaad mahadsantiin saacadii hadda la soo dhaafay oo dhan waxaynu arkaynay hadallo la isku marinayo warbaahinta oo u dhaxeeya maamulka Puntland iyo waliba dawladda waqtigeedu dhamaaday oo hogaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud waxa maamulka Puntland iyo dawladda Soomaaliya xilligan ka dhex taagan kala riixasho ciidan iyo waliba horin colaadeed oo la oran karayo dhanka Muqdisho ayba colaadu xilligan ay ka soo socotaa ka hadalka mushaaraadka ciidanka iyo kala riixashada waliba ciidanka ee ka imaanaysa dhanka dawladda dhexe ee Soomaaliya waa aragti markii si waaqici loo fiiriyo ay ka dhex muuqato inay doonayaan inay awood ciidan ay ku dhaxyeeshaan gudaha maamulka Garowe ka dhisan Xasan iyo Xamse waxay si toos ah ula hadlayaan cadiifada iyo daruufaha ciidamada ku dhaqan gudaha maamulka Puntland waxaana loo sheegayaa in xataa la siin karayo mushaaraad gaaraya ilaa $1,000 oo Mareykanka ah xilli aynu ka warqabno in ciidamo gudaha magaalada Muqdisho ku jira aysan xataa xuquuq ciidan iyo waliba mushaaraad rasmi ah aysan haysanin madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha baariga u ah Xamse Cabdi Barre ayaa xilligan waxay u arkaan in awood ciidan lagu dhaxyeesho gudaha maamulka Puntland inay tahay arrin wax weyn ka bedelaysa inay xilka filan Soomaaliya ay markaasi ay sii joogaan waxay u arkaan Puntland inay tahay qodaxda hadda ku taagan xilkooda haddii ay Puntland ka adkaadaan ama qalqal siyaasadeed ay ku furaana inay aad u fududaanayso inay xilka iska sii joogaan waana barada ay isku dhufanayaan marka si waaqici loo aqriyo talaabooyinka ay qaadayso dawladda Soomaaliya ee xarunteedu ay tahay magaalada Muqdisho ciidamadan la qorayo iyo mushaaraadkan laga naadinayo warbaahinta ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli kala goys ah oo dawladda Soomaaliya ay salmaandeed haysan waxaana soo degdegay su'aalo badan oo markaasi la isweydiinayo sida 4 sano ee hadda la soo dhaafay ee Xasan Sheekh Maxamuud uu mandate ka haystay maxaa looga qori waayay ciidamo gudaha maamulka Puntland maxaa ciidankan ku soo beegaya xilli ay dawladdu mandate-keedii ay dhamaatay isla markaasna aysan haysanin xataa doorasho heshiis lagu yahay waxa sidoo kale la isweydiinayaa maxaa loo siin waayay mushaaraadka ciidamada Puntland xilligan warbaahinta loo marinayo maamulka ka shisheeye ee curdanka ah ee SSC qaatumo iyo ciidamo kale oo Soomaaliyeed isla markaasna ku dhibaataysan koonfurta Soomaaliya xataa magaalada Muqdisho gudaheeda markii aad fahanto su'aalahaas ayaad marka arki kartaa in ciidamo laga qoro xilligan gudaha Puntland ay tahay mashruuc siyaasadeed iyo waliba mid xil lagu goobayo waqtigan kala guurka ah marka sidaan sheegay Xasan Sheekh Maxamuud Puntland wuxuu arkaa qodax ku taagan xilkiisa inuu Puntland ka taqalluso iyo inuu Puntland burburiyo iyo inuu colaad Puntland ka abuuro iyo inuu saameyn ku dhaxyeesho intaba wuxuu ka dhaxarkayaa inuu xilka uu sii joogi karayo wuxuuna isku dhufanayaa xisaabo sida inuu xamar ka adkaaday inuu baydhabo kala eriyay
inuu galmudug ninkuu doonay uu geystay inuu Jubbaland laba u kala qaybiyay iyo in waqooyi bari ee Soomaaliya ay jeebka kor ugu jirto halka kaliya oo xilligan xilkiisa hortaaganna ay tahay maamulka Puntland taasina ay tahay sababta xilligan ciidamo looga qorayo looguna daabulayo gudaha maamulka Puntland dhanka kale marka la fiiriyo Siciid Cabdullaahi Dani asaguna ma ahan awliya ma ahan wadaada Siciid Dani wuxuu Puntland asaguna uu arkaa inay tahay jaraanjaro si fudud u gaarsiin karta xilka fila Soomaaliya sanad walbana wuxuu Siciid Cabdullaahi Dani uu ka qaadaa maamulka Garowe laba boorso oo waaweyn midna ay xildhibaano ka buuxaan midna ay lacag tiro badan ay ka buuxdo wuxuuna oga soo tagaa dhankaas magaalada Muqdisho haddana waxay xogu sheegayaan inuu mar kale uu yahay musharax u taagan xilka madaxweyne ee dawladda dhexe ee Soomaaliya marka Xasan iyo Siciid Cabdullaahi Dani dagaalkooda Muqdisho iyo Garowe marka hore waa mid siyaasadeed marka labaadna waa qayb kamid ah loolanka loogu jira fila Soomaaliya laakiin waxa la oran karayaa markaanu waji ka duwan wajiyadii hore ayay yeelatay isla markaasna si ba'an ayaa loogu dhaxmilmay gudaha maamulka Puntland dadka sida dhow uga warqaba siyaasadda Puntland waxay isku raacsan yihiin inay Puntland tahay colaad mahurto ragga Xasan soo dirayna ay colaad ka sameyn doonaan gudaha Puntland laakiin su'aalo ayaa ka imaanaya colaadaasu ma mid wax bedesha ay noqon doontaa mise waxay noqon doontaa mid la mid ah colaadii lagu qaaday madaxweynaha mandatekiisa lagu muransan yahay Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe qodobka labaad markii aynu fiirino aqoonsigii Israa'iil laga keenay ayaa hadda wuxuu gudaha magaalada Hargeysa uu kala kulmayaa culays xoog badan Cabdiraxmaan Cirana wuxuu dhawaan uu careeyay ama uu hadal hanjabaad u mariyay warbaahinta qaar kamid ah mucaaradka maamulkiisa sida waliba Musabixi iyo rakale waxaana ninkaasi oga yimaaday jawaabo waaweyn oo uusan markaasi filaynin ka badheed inaad ka tanaasushay ilaalinta diinta islaamka ee ummadan budliga u ah marka la fiiriyo saameynta ka dhalatay hadaladii ka soo yeeray mucaaradka maamulka Somaliland ayaa waxa la oran karayaa aqoonsiga Israa'iil laga keenay ayaa xilligan wuxuu la kulmayaa culays xoog leh si weyn ayaana tooshka loogu ifiyay marka la fiiriyo hadalkii ka soo yeeray hogaamiyaha xisbiga ka ninka magaciisa la yiraahdo Maxamuud Xaashi oo si adag u weeraray Cabdiraxmaan Cirro safaarad ku sheegay laga furtay Qudusna ugu yeeray inay tahay xafiis aqoonsigana sheegay inuu yahay mid jaban oo qaramada midoobay iyo caalamkuba aysan aqbalinin Cabdiraxmaan Cirro waxa markaan loo diray homework ama layli waxaana lagu yiri ka bareer inaad ka tanaasushay ilaalinta diinta islaamka ee ummadda Somaliland markaasi buddig u ah waa arrin weyn oo meel laga mara aan lahayn asaga Cabdiraxmaan Cirro bilaabay hadalkan leeyahay ka bareera isla ka bareerti oo nooc kale loo dhigay ayaana hadda la soo hordhigayaa Cabdiraxmaan Cirro waxaana ummadii oo dhan la tusay inuu Cabdiraxmaan Cirro ka bareeray ama uu ka leexday ilaalinta diinta islaamka waliba iyadoo lagu lifaaqay hadaladii ka soo yeerayay culimada magaalada Hargeysa marka Cirro wuxuu dhexda ka taagan yahay xilligan aragti qariban oo xataa aan fasiraad rasmi ah aan laga bixin karin ummadan aan lagu qancin karin Cabdiraxmaan Cirro dhawaan wuxuu yiri anaguna loo madrinin ilaalinta qadiyadaha islaamka laakiin aqoonsi baad naloo dira hadalkaas runtii noqday mid backlash ku yeeshay Cabdiraxmaan Cirro asaga iyo ragga la socdaana ay iska difaaci waayeen fagaarayaasha siyaasadda lagu qariyo marka aragtidii qaribnayd ee laga soo qaaday Israa'iil iyo Benjamin Netanyahu ayaa waxay si weyn ula kulmaysaa mucaaradid xoog leh iyo waliba weerar aan kala joogsi lahayn haddii ay tahay siyaasiyiintii hore culimada dadka waxgalka ah dadka Soomaaliyeed iyo dunida muslimka ahba lamana yaqaan sida Cabdiraxmaan Cirro uu qorshahan uu ku sii wadi karayo wuxuuna noqdayba nin nugul oo waliba u fudud hadalada ka imaanaya siyaasiyiinta kuwada ugu jiricsan iska badaa kuwada rugcadaaga ah marka isdiidada siyaasadeed ee Hargeysa ka jirta ayaa xilligan wuxuu heerkulkeedu u maraya halka ugu sareysa lamana yaqaan waxay xaaladdu ay noqon doonto mar walba oo Israa'iil ay saameyn ku dhex yeelato maamulkaasina waxa si badanaya mucaaradida la mucaaradayo aragtidaas dhanka kale marka la fiiriyo waxa la oran karayaa hadii colaadda bariga dhex ka jirta ay soo gaarto maamulka Somaliland iyo waliba aagaga barbara oo hadda la leeyahay Israa'iil ayaa fariisima ka samaysanaysa isdiidooyinkan waxay isku bedeli karayaan kuwa gacan ka hadal ah oo gudaha Somaliland ka qarxa taasoo lagu diidan yahay dhanka Somaliland horena waxaynu u aragnay in dhankaas iyo Sanca iyo waliba
dalka Yemen dad Soomaaliyeed oo degan ay si weyn u naqdinayeen in Israa'iil saldhigyo ka samaysto gudaha Soomaaliya marka aragtida aanu hadda dhan wal markii laga fiiriyo waa mid hadda aan wax taageero aan haysanin dadka taageerayeen ay yihiin dad yar oo kooban oo qaab indhala'aan ah ku taageeraya Cabdiraxmaan Cirro marka Cabdiraxmaan xagee buu geyn doonaa aragtida Israa'iil laga soo xawli waa su'aal kale oo weyn oo ayaduna ka taagan geeyiga Soomaaliyeed oo dhan waana arki doonaa bal waxyaalaha ka soo kordha marka koonfur iyo waqooyi waxaa ka karsamaya isdiidooyin siyaasadeed oo xoog leh isla markaasna su'aal gelinaya mustaqbalka dadka Soomaaliyeed dawladda dhexe ee Soomaaliya mandate ma haysato aydan mandate haysan ayayna doonaysaa inay colaad iyo duulaan ay ku qaado dhanka Puntland waqooyigii lahaa wango aynana waa kuwa hadda isku haysta qadiyada Israa'iil baan doonaynaa iyo ma doonayno ayaguna xaaladooda maxay noqon doontaa waa su'aal kale oo aan xilligan aan laga jawaabi karin marka halkaas ay Soomaalidu ay taagan tahay waana sawir guud oo inuu tusaya halka maanta Soomaaliya ay taagan tahay bal waxyaalihi arrimahan ka soo kordha muuqaaladeena dambe ayaynu ku fiirin doonaa saaxiibayaal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh